todobaadka dhaqanka iyo hal-abuurka jaamacadda Gaalkacyo ayaa lagu soo dhawaangabeeyay isla jaamacadda waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ardayda jaamacadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Gaalkacyo Muxiidiin Cabdullaahi oo ka warbixiyay sababta ay u qabatay jaamacadda Gaalkacyo todobaadka dhaqanka iyo hal-abuurka jaamacaddu marna kama daari doonto inay dhan kasta ka saameyso bulshada haday noqoto aqoon haday noqoto dhaqan haday noqoto horumar marna kama daali doono inaan bulshadeena waxa aan tari karno inaan tarno waxaan rabaa inaan idin la wadaago jaamacadda Gaalkacyo markay geygan timid waxa ka guuray aad ogtihiin gaajadii iyo gacmo hoorsigii waxaad ogtihiin jaamacaddu hoggaanka dhalinyarada iyo meel kasta oo madal la iskugu imaado waxa runtii u taagan dhalinyaro dhigata jiyo ama gu iyo dhalinyaro ka qalin jabisay oo dhameysatay cilmigii jiyo ay ka heleen ayaa hogaamisa oo qabata barnaamijkaas mas'uul xil haayo iyo dhaqanka ama dhaqan yaqaanka deegaanka joogo dhalinyarada iyo waayeelka dhammaan gu waxay ka mudan tahay inay runtii la wadaagaan ama ay taageeraan ay ka mudan tahay dhanka kale waxa goobta ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan waxa ay bogaadiyeen jaamacadda Gaalkacyo oo qabatay todobaadka dhaqanka iyo hal-abuurka waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa jaamacadda GU waan jeclahay maaragtay in saas oo kale mu'asasooyinka waxbarashadu ay ugu daysadaan oo cid walba ay kaalinteeda ka qaadato aad iyo aad runtii jaamacadda GU iyo dhammaan dadkii soo abaabulay aad baan ugu mahad celinayaa wax loo baahan yahay weeye Soomaalidu dhaqan bay lahayd markii dawladii jirtay hore dhaqanka Soomaalida dadka waa la wada bari jiray oo dawlad common ah oo dalka wada haysan jirtay gobol walba iyo dhaqanna kala gedsan waa la lahaa galowdii halkan waxaan ka sheegay dhaantadii waxa laga dhigay waa la Soomaaliyeeyay fursad bay heshay dadku dhanba wada qaadahaya waa sax laakiin dhaantadu galbeedka iska lahayd deegaamada gobolada dhexe cayaaro gaar ah bay lahaayeen wiilashaqada kamid ah jaandheerta kamid ah dhaqanka Soomaaliya waxyaalaha uu ka kooban yahay waa farbadii sida af cuntada suugaanta fanka iyo waxyaalo kale oo la halmaalo farbadan kaliya waxa sharaxaad badan qaadanaya intaas oo dhan mowduucyada oo laga hadlo oo dadkii hore xambaarsan jiray ay xambaarsanaayeen waxay qaadanaysaa waqti aad iyo aad u farbadan waxayna soo saalaysaa in dadku ay ku baraarugaan sida ay Soomaalidu u noolaan jirtay sida waqtigan u nool yihiin iyo waxa ku dhacay dhaqan guurka dhaqanka soo u guuray iyo sida sahalka iyo sida noloshu ahaan jirtay waxa ii muuqanaysa marka hadda dhaqan guurka aan wax yar ka taabto halka waxa la soo bandhigay waxa Soomaaliga loo yaqaan agab waxaan u jeedaa raar iyo kabad iyo dhiilo iyo udbo iyo ma garanaysa alaab far badan oo hadda markaa miyiga baxdid aadid oo tuulooyinka aadid mararka qaar aadan arkayn waxa arkaysaa guriyo ka samaysan bacaha maanta la isticmaalo oo mararka qaar waxaan u jeedaa saladii oo maanta lagu bedelay bacaha oo waliba mararka qaar waxaad arkaysaa cunada ayadoo lagu shubahayo khatarta ka imaan kartan aad u far badan tahay maqaayadaha ay ku qaadanayaan bacdiyo maraqi lagu shubayo aad iyo aad u kulul waxaad arkaysaa in loo isticmaalayo qaabkii salada ayadoo dhaqanka Soomaaliya ay u lahaayeen waxyaalo far badan ee halka indhaha qabanay inta ay socotay munaasabada ayaa kooxda hidaha iyo dhaqanka ee jaamacadda waxay halkaas ku soo bandhigeen dhaqamadii hore ee Soomaalidu lahayd hanyahay adoo doora oo bilabadiis leh bay doorowday oo doob aragtay oo bilabadiis leh hoobeehiye hanta allo yaa hankoleeya oo hoy cilaageeya oo hiil isku xara hoobeehiye hanta ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo xiray wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Galmudug Axmed Sharaf Falagle oo asaguna dhankiisa ka qayb qaatay todobaadka dhaqanka iyo hal-abuurka ee jaamacadda Gaalkacyo kala dhisaayo waxa loo dhisaa ulijeeda loo dhisaa la iskaba dhiso waxa loo dhisaa wiil iyo gabar saarkooday baa loo dhisaa teetana waxaad u jeedin aqalka waxa ku dadeenay waa 7 raar weey
waxaan maqashaan markii gabadha la bixinayo 7 fac ninkii ku faaniyo 7 fac ba ninkii ku guursiiyay gabadha aan ka guursado 7 fac buu ku faaniyay teetana waxay u baahan tahay 7 fac iyo 7 raar inaad isku yara aadiso maxaa loola jeedaa aad seegto waxa loola jeedaa waxa weeyaan aqalka horta waxa dhisa labada la isku guurinayo labada afarta waalid ayaga dhashay maxay isku yihiin 6 Soomaa rajada laga qabo ilmaha ay dhalaan ayaa 7 ku noqonaya sidaas 7 fac ku tahay kabada ayaa iyadana wax rabaan hal kalma ka yiraahdo kabadu markaas waxay Soomaalidu ku maamaadaa hilbaha xoolaha sararta hadba sida loo dhigo ayay noqotaayo markii la gadiyana la fay noqotaa markii la gambiyana hilibka hilbaha uu qurxoon bay noqotaa kabadu waa shay aad u qurux badanoo xoolaha la rartaa lagu tala galay in laga xijiyo culayska iyo in si xagan alaabta la saarayo laakiin macnaha ku jira waxa weeyaan maryaha laga sameeyo iyo waxa kastoo laga sameeyo marka saa u rogtid waxa alla waxa marar noo xiran ayaa mid walba dacal uga tolanta deetana waxay koobta dharkii oo dhan maxamed muxiidiin saxan soo xog galmudug TV gaalkacyo